rabay inaan idinla wadaago xogta cusub ee kasoo kortay cudurka coronavirus. maanta xogta aan hayna waxa waa in la baaray ilaa iyo 22 qofood. 22daas qofoodna 20 waxay noqotay positive oo waxaa ku dhacay cudurkii ay la kulmeen. 20kaas 3 way geeriyootay shalay isbitaalka kala duwan ku dhintay. Ilaahay ha u naxariisto. tirada guud ee wadanka inta xaaladood ee ka jirta waa 80. 5 way geeriyootay. Ilaahay ha u naxariisto, jannadii Allah ka waraabiyo, sabir Allah ka warsiiyo intii ay ka baxeen. 2 way iskuutay waa caafimaadtaan Ilaahay siiyo. waxaan ku boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed inay taxadar ka badiyaan, inay u feejignoodaan, inay dhageystaan fariimaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka iyo bahweynta caafimaadka guud ahaan ay fidinayso. wacyigelinta in lagu dadaalo, in la dhageysto waxyaalaha lagu xakameyn karo cudurka inuu fog. cudurka bulshada ayuu ka dhex dilaacay. sida aan arkaynana baaritaanadii isbuucaan sameeyo waxaad ujeedaa inuu sii kordhayo tirada dadka oo cudurka haya. waxaan ka codsanayaa bulshada weyn inay taxadaraan, in laga ilaaliyo dadka waaweyn ee cudurrada dheer chronic qaba, in si gooni ah loo xanaaneeyo, in carruurta guryaha lagu celiyo, in nadaafadda iyo gacmaha iska dhaqidda ilaa iyo ugu yaraan 20 second lagu booriyo cid kasta oo ka mid ah bulshada. in haddii ay barnaamijka aadayaan basaska iyo raacayaan ay qaataan maskarada sanka iyo afka lagu xirto, in gacmaha si fiican isaga dhaqo. wax allaala wixii lagu xakameyn karo cudurka walaalayaal waa inaan ku foojignaana, inaan ku dadaalnaa, inaan kala fogaanshaha ku dadaalnaa, in bixidda badan ee aan markaas dan weyn oo khaas jirin oo degdeg ah in laga gaabsado, in la dadaalo. ilaahay dadaalkuna faray, cudurkana wuxuu ku fiican yahay in la xakameeyo, in laga hortago. daawo malaha waa xaaladihiisa dhibka badan markuu gaaro qofka wuxuu u dhimanayaa neefto qabato iyo marka waxaa ilaahay ka rajeynaynaa inuu naga yareeyo, naga koriyo dhibkiisa, in bulshadeena badbaado, aan gacmaha iswada qabsano, aan ka wada shaqeyno, ka wada fikirno sidii cudurkaas aan uga hortagayno. khatartiisu leeyahay, hala ilaaliyo dadka nugul, dadka cudurrada chronic-da qaba, carruurta, in lagu dadaalo nadaafadda, in lagu dadaalo kala fogaanshaha, in lagu dadaalo inaan meelaha ciriiriga iyo buuqada aan la gelin. marka ilaahay hana waafajiyo wanaagoo dhan, ilaahay dhibkiisa ha naga yareeyo, ilaahay ha naga koriyo. aad iyo aadan idinkaga mahadcelinaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amaba goobahooda shaqo ay eheladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit. sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga iDahab.